waxaan salaamayaa dhammaan shacabka reer Puntland meel kasta ay joogaan waxaan u rajaynayaa guul iyo horumar sida aad la wada socotaanba sideedii bishii koowaad 2018 maleeshiyada laga soo abaabulay maamulka Hargeysa ayaa waxay duulaan qaabo ku soo qaadeen dhulka Puntland waxayna duulaankaas ku qabsadeen deegaanka Tukarraq ee ka tirsan degmada Laascaanood ee gobolka Sool waxaa xusid mudan in duulaanka maamulka Hargeysa uu ku soo aaday Puntland xilli uu booqasho rasmi ah Puntland ku joogo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waxayna taasi markhaati u tahay sida uu maamulka Hargeysa u carqaladaynayo geedi socodka midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed Puntland waxay ku mashquulsan la dagaalanka argagixisada caalamiga ee Shabaab iyo Daacish duulaanka maamulka Hargeysa ku soo qaaday Puntland wuxuu garab iyo gaashaan waxa uu yahay argagixisada caalamiga Puntland waxay culays ka saartay horumarka dalka iyo dibadhiskiisa mana doonayso in ay daadiso dhiig Soomaaliyeed dowladda Puntland way ku filan tahay difaaca dhulkeeda iyo dadkeeda waxaana u sheegayaa maamulka Hargeysa duulaanka ku soo qaadeen Puntland inay kala kulmi doonaan cawaaqib xumo inay heli doonaan jawaabta ku habboon haddaba waxaan shacabka reer Puntland gudaha iyo dabaddaba ku wargelinayaa inay u diyaar garoobaan difaaca dalkooda isla markaana ay garab istaagaan ciidamada difaaca Puntland si loo xaqiijiyo midnimada iyo wadajirka Puntland shacab ahaan iyo dhul ahaanba ugu dambeyntii waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed dowladda federaalka Soomaaliya daneeyayaasha xasiloonida Soomaaliya iyo beesha caalamkaba in maamulka Hargeysa uu mas'uul ka noqon doono cawaaqibnimada ka iman doonta duulaanka qaawar ee ku soo qaadeen deegaanka Puntland wabillahi tawfiiq السلام عليكم ورحمة الله